gabar macnaha markeedii hore aan qeyr badnayn baa la aroosay. arooskii oo socda bay gabadhii fikirtay, waxay istiri haddii ninkan lagu aqal geliyo oo guriga aad u tagto oo uu ku fahmaa. markaasii jin isku soo riday. aroos oo socda bay gabadhii dhacday, dadkii baa ku soo shamuumay. gabadhii hooyadeeda waxay tiri gabadheeda jinniyadan waa ay qabtay, bal shiiqa loo waco. arooskii waxaa yimid nin shiiqa quraan buu ku akhriyey, heesihii iyo wixii dhan waa la dambeeyey, quraana lagu akhriyey sida lagu akhrinayo baa gabadhii laga dhex hadlay. gabadha marka waxa dhan waa jilliin, cidna kuma soo degin ee ayadaa waxay iska dhigaysaa qof lagu soo degay. luuka waxay ka rabtaa nin baa ka dhex hadlay. shiiqiya wuxuu yidhi meeqaatiin ayada lay hadlayso oo iska dhigayso jinni ka dhex hadlaa. gabadhi markaas bay waxay tiri waana ayadayaa ayadoo iska dhigaysa jinni. markaas bay waxay tiri 600 anna. shiiqiya wuxuu yidhi ma baxayse. markaasuu yidhi waa baxaynaa. waa baxaynaa baxa. markaas wuxuu yidhi waa baxaynaa surud waa. shiiqa wuxuu yidhi xaggee ka baxaysid? ma madaxa ka baxaysid? ma dhagaa ka baxaysid? ma lugaha ka baxaysid? farta ka baxa no badanaa farta ka baxan. adiga warka iga dhex karin. ma dhagaha ka baxaysid? ma jilbaha ka baxaysid? ma dhabarka ka baxaysid? jinniga wuxuu yidhi intaasba kama bixine, waxaan ka baxaynaa bashiirka. ayuub u dhaqan xuntayaa. aye markaasaa waxaa dhacday jaamac ayuub 600 oo gabadha dhex jirtay hal maray bashiirka ka baxay. adiga bashiirka iyo balaca markaa oo gabdhaha la jirtid lama ku soo dhacda inaad ka sheegtay. gabadhii iyo ninkii waa la isku daro, waa aqal galeen. gabadha marka hore ciyaarka xaafadda ninku wuxuu see waxu jira waa qiyaantee lacag ay qasaartay. bashiirkii meeshaan sashil maba ahane. maxay tiri mataqaan gabadhii hooyada wasiga u jeeda 600 meelay ka baxday ma wejig sugays kulaha.